barnaamijyadii waxqabadyada sanadkii 2020 ee xarunta cilmi baaris iyo horumarinta ee hadaf xarunta hadaf ee cilmi baarista iyo horumarinta ayaa qabatay sanadkii 2020 barnaamijyo waxqabadyo kala gedisan oo ku xaqiijinayay ujeedooyinkeeda ay ku tiigsanayso himiladeeda fog barnaamijyadan iyo waxqabadyadan oo tiradooda ay gaaraysay ku dhawaad 40 ayaa isugu jiray xog ururin tababaro aqoon isweydaarsi kulamo iyo shirar dood iyo hadal jeedin qoraallo iyo muuqaallo research institute kan ama research center kan iminka aanu hadeerto iminka hawshan weyn qabtay oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno oo aan ku boorinayno ay tahay idinka laftigeenu inaydan wax weyn aydan ka qabataan xarunta tan hadafna waa bogaadinayaa arrimaha inay ururiso oo isku dubarido oo anaguna aanu gacan siino oo ilaa maamulka la geeyno oo la habayno baanu diyaar u nahay waxqabadyadan ayaa lagu beegsanayay wacyi dhiska iyo abaabulka bulshada u qareemida xuquuqda muwaadinka iyo horumarinta deegaanka nabad dhiska iyo kobcinta dawlad wanaaga jihaynta dhalinyarada iyo dardargelinta waxqabadyada ururada bulshada rayidka soo bandhiga faraaqaynta iyo kadoodida aragtiyaha siyaasadeed dhaqaale iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag anigu waxa aan qabaa oo waliba aan aaminsanahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh haddii aynaan shirar waaweyn oo kan ka weyn oo aqoonyahan iyo mas'uuliyiin iyo ismo iyo dad haddaynaan hadal waxaan noqonaynaa dad 20 sano ee soo socda loo doodo oo lira beelaha halka joogay hal soo kobciyo laba wax oo dawladda xilligan jirta ay ku guuleysatay waxa weeye laba wax oo aan intii Puntland jirtay hore loogu marin waa nidaamka ciidanka oo la isdhexgelinayo iyo nidaamka dimuqraadiyadda siyaasadahaas wax badan kala ma socono dadkeena wacyigelin lama siiyo codkooda lama maqlayo taxamar waxbaynu ku leenahay tagaro waxbaynu ku leenahay waxa loo baahan yahay ka hadashaan dalkan waa mandaqad dad badan baa degan laba shay baa laga qabtay hal nin baa ka qabtay waa Cabdullaahi Qablan Allahu naxariisto qofka dhalinyarada ahi waxa uu go'aansado ama yoolkiisa iyo hadafkiisu waa wax inta badan adduunyada saameyn ku yeesha hadda taariikhaha dalal kasta aad akhrin waxa wax ka bedelay dalka ama saameyn ku yeeshay markaas si wadid waa dhalinyaro idinka oo kale ama da'da dhalinyaranimada loo yaqaano dadku markay marayaan waa maxay khamriga inuu leenahay waa caadi oo sida shaac u cabayn war khamriga hala joojiyo bishii labaad ee sanadkii la soo dhaafay xaruntu waxay sameysay barnaamij ujeedadiisu oo ahaa dardargelinta waxqabadyada ururada bulshada ee gobolka xaruntu waxay ogaatay inay jirto baahi weyn oo loo qabo in la helo ururo bulsho oo abaabulan si ay uga qayb qaataan horumarka ayna buuxiyaan kaalinta dawladnimo ee maqan sidee bay bulshadu iyadoo aan abaabulnay ay horumarkeedu garan kartaa waxa la yahay maxamuudow taas marti waxa looga yahay dhammaan dhalinta aqoonyahanka gobolka taladiina tusaalihiina ka qayb qaadashada inaad maxay ahaytay aad ka qayb qaadataan inaad bulshada abaabushaan waan ka sugaynaa doorkiini haweenku ururada haweenku waxa weeyaan gobolkeena saameyn weyn bay ku leeyihiin marka waxay u baahan yihiin si shaqooyinkooda ugu tar iyagana in la garab istaago dhalinyarada isgarab taagto ay tababar helaan loo qareemo dhinac kasta looga qareemo dhinaca bulshada looga qareemo dhinaca dawladeena barakaysan looga qareemo xarunta hadaf waxa qiimo weyn u lahaa inay sameysay bishii 6 oo la weyn oo lagu dardargelinayo dhismaha mashruuca wadada Ceeldaahir Cerigaabo mashruucaas oo halbaro nolosha iyo horumarka gobolka Sanaag ayaa xaruntu waxay soo saartay labadii bishii 6 baaq ujeedadiisu ay taageerida iyo dardargelinta habsami socodka mashruuca wadada Ceeldaahir Cerigaabo waxay ugu baaqayaan dawladda Puntland inay cadayso sababaha keenay in mashruucii wadada Ceeldaahir Cerigaabo oo ahaa mashruucii horumarineed ee ugu weynaa ee gobolka istaago kadib markii xukuumadda xilka haysa talada la wareegtay muddo sanad iyo bar ah aynana muuqan ififaalo ah in mashruucu dib loo bilaabo وهذا رمنا وضد وقدير
arrimaheena gobolkeena iyo duruufaha khuseeyo oo dhanna qadiyad bay taagan yihiin waxa laga yaabaa inaynu ku mashquulno maamulka iyo maamulka mashquulo ama hebela inaan ku mashquulo ama waxbuu keenayaa waxbuu soo wadaa arrimaha ayaga ah ee runtii aadka yani u hooseeya inaynan ka hadlin doodeennu ha noqoto qadiyad aan wadaagno oo muuqata waxaa kaloo ay bilowday inay ka fikirto iyadoo kaashanaysa aqoon-yahanka iyo dhalinyarada deegaanka hab lagu dardargelinayo qaaraan ururinta wadadaasi sidaa darteed waxay hal abuurtay xaruntu ololaha qof iyo foosta ujeedadiisu ay ahayd in bulshaweynta Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyay inay awoodooda ka qayb qaataan qaaraan ururinta mashruucaasi xarunta cilmi baarista ee hadaf aad baan ugu mahadcelinayaa oo dad dhalinyaro ah oo isxilqaamay baa jira oo reer Sanaag u badan inay meesha qaar ka fadhiyaan waa filaya Ilaahay ka ajar siiyo dadaal aad u xog badan bay wadaan oo qof iyo foosta barnaamijkaas ee wax badan bay ka gaareen maalintaas foostooyinka ay soo baxeen ayaa dhalinyaradii fikirkaasi isna ku abuurmay hal qof iyo hal foosto waxaan waa runtii aad bay dadaal u sameeyeen waxa baxay firfircooni badan baa baxday adduunka oo dhan bay isku qeylay in barnaamijka la galo bishii afraad ilaa bishii lixaad xaruntu waxay ka qayb qaadatay ololaha wacyigelinta ee laga hortagayo cudurka faafaha daran ee COVID-19 sanadkii tagay xaruntu waxay qabatay 4 ka mid ah kulanka bilaha ee madasha hadaf kulankaas oo lagu soo bandhigayo isla markaana lagu falanqeynayo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada ee gobolka mid ka mid ah kulamadaasi bulshada ayaa su'aalo khusaya amniga iyo cadaaladda waxa lagu weydiiyay taliyaha booliska ee gobolka iyo madax ka tirsan maxkamadaha taliyaha qaybta waxaan weydiinayaa maxaa kaaga qorsheysan askartan aan la garanayn ma boolisba ma military-ba suuqa dhexsita qori waxaan ognahay in gaabis badani uu ka jiro dhinaca booliska iyo maxay ahayd systemka qofka loo soo xirayo marka waxaan rabnaa maxaa idinka qorsheysan madashii sideedaad wasiirkii hore ee shidaalka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Maxamuud Cali Kaanjo ayaa ka hadlay shidaalka iyo macdanta Soomaaliya markii aan taariikhiyan aan eegno petroolka Soomaaliya waxa markii ugu horeysay waqtigii waxay ahayd la bilaabay baaritaankiisa ama se hadaa la ku roon yahay baaritaankiisa wuxuu ahaa 1912 haddaan sana aan hoos ugu siiro dhaadhaco waa ogtihiino dawladdii hore ee kacaanku waxay runtii isku taxallujisay inay wax ka baadho laba ceel bay qodeen ceel wuxuu ahaa ceelka buraan u dhow oo galxamur baa la yiraahdaa galxamur oo bloggaasna waxa weeye block number 34 kan kalena waxa weeye kan badda barnaamij dood oo dhinac socdayna waxa laga hadlay kheyraadka dabiiciga ee gobolka Sanaag iyo sidii looga faa'iideysan lahaa xarunta hadaf ayaa qabatay kulamo laga hadlayay nidaamka xisbiyada badan iyo doorashooyinka Puntland qaybtood waxa lagu casumay gudida doorashooyinka Puntland ee TBC kuwaas oo bulshada u faahfaahiyay qorshaha gudiga iyo habsami socodka howlaha dimuqraadiyiinta Puntland bishii 12 ee sanadkii tagay barnaamijka jahayta dhalinyarada oo olole wacyigelin ah ayaa xaruntu u qabatay dhalinyaro kala gedisan oo ku nool degmada Baran barnaamijkan oo isugu jiray xog ururin iyo kulamo la talin ah iyo waliba hadal jeedin ayaa ujeedadiisu ahayd in laga hortago dhibaatooyinka haysta dhalinyarada lagu wajahayo noloshooda iyo waxqabadyadooda xarunta hadaf muhiimadda ay ka leedahay ololahan waxa weeye kor u qaadida wacyiga dhalinyarada iyo waxqabadkooda hadafka ugu weyn ee qofka dhalinyarada ah la rabo in uu yeesho loo xadiday wax weeye in uu ka fikiro sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali gelin lahaa hankeena ugu dambeeya waa inuu noqdo adduunkeena inaan wax ka bedelno markaan rabno inaan madax noqono waxaan rabnaa madaxnimadeena inay noqoto madaxnimo togan oo dadka wax ka bedelaysa si aadan dhalinyarada ka dambaysa u moral jabin waa inaad fadhiga ka kacdaa ninkii jaamacadda soo dhameeyay wax soo bartayo waa inaad shaqo heshaa sidee shaqo ku helaysaa waa inaad shaqo adigu abuurtaa waa inaad shaqo aad dadka u shaqaynaysid xirfadeeda aad la timaada waa inaad xirfadahaaga aadan ku koobin hal xirfad waa inaad naqataa qof xirfado fara badan leh oo marba miduu doono jeebka kala soo baxa ilaa aynu qabyaalada ku bedelno qarannimo
qaran baynu nahay hoos u dhacay oo weliba idinku waxay u baahan tahay dowladnimo soo arag anagu dowladnimada soo aragnay qabiil qarannimo ka dooro qoraygana qalin ka dooro qaadka qumanaan ka dooro khamriga khaatuma ka doono bilaawaha buu ka dooro xaruntu waxay waqti gelisay sidii loo dhiirigelin lahaa halabuurka bulshada iyo wax soo saarka waxay kaloo iftiimisay fursadaha ganacsi ee ka jira gobolka wax soo saarka beeraha iyo dhiirigelinta dhalinyarada sameynaysa shaqo abuurka ayaa ugu muhiimsanaa barnaamijyadaasi oo taxan ahaa waxay u baahan yihiin runtii aan ku dhiirigelinayaa in la maalgashado beero laga samaysto wax lagala soo baxo beeraha bilowgoodu waa shaqo badan yihiin qofku waxa laga yaabaa niyad jab iyo inuu ku yimaado laakiin marka dambe qofku uu faa'iidada gaaro buu dareemayaa in ay wax ku jiraan oo wax lagala soo bixi karo shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Cawsane iyo amaandarada soo badanaysa ayaa xarunta hadaf ka soo saartay baaqi u jeedisay dowladda Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xaaladda siyaasadda iyo midda amniga gobolka Sanaag ayaa lagu gorfeeyay madallo fagaarayaal badan lagu qabtay oo xaruntu soo agaasintay siyaasiyiinta gobolka ayaa aragtidooda ku soo bandhigay waxaanu dirsanay waxa weeye 9 xildhibaan oo gobolka Sanaag iyo Highland matalaya waxay doonayaan inay gobolka u qabtaan oo ku midaysan yihiin ma jiraan waxaa kaloo ay xaruntu dood ka samaysay mustaqbalka iyo ayaha gobolka Sanaag UN-ku gobolkeenan aynu ku noolnahay Sanaag iyo Sool wuxuu aaminsan yahay dispute area meel la isku haysto aan cid maamulin cidii ka saar lahayd waa 3 qolo waa bulshada mas'uuliyiinta dowladda iyo kuwa heer federaal marnaba waxaan meesha ka maqnayn xog ururin tala bixin iyo warbixino badan oo xaruntu ku daawacday page-keeda